السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan asxaabta ku xiran Engineer GX Scientific Channel. waxaad ku soo dhawaataan imtixaankii fasalka 8aad ee dugsiga dhexe, qaasatan maadada xisaabta ay galeen sanad dugsiyeedka 2021-2022 ayaan ka shaqeyn doonaa insha Allah. haddii ay tahay markii ugu horeysay oo aad soo booqanayso channelka, fadlan subscribe saar, muuqaalka like saar, la wadaag asxaabtaada. haddii aad ku xiran tahay waad ku mahadsan tahay la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga. imtixaanka maadada xisaabta ee fasalka 8aad 2021-2022 ayaan guda gali doonaa. isla socod wanaagsan. marka ugu horeeya foomka qaabkan ayuu u qoran yahay. ardayga waxaa laga rabaa magaciisa afaran, roll numberkiisa, dugsiga uu ka socdo iyo xarunta imtixaanka uu galayo dhammaan inuu soo wada buuxiyo. kadibna fadlan u akhri tilmaamahan si kaadsiyo leh ama si taxadar leh ka hor inta aadan ka jawaabin su'aalaha. ku qor meelaha u banaan magaca oo dhammaystiran, roll numberkaaga, dugsiga iyo xarunta aad imtixaanku galayso. qodobka labaad ka jawaab lagu dhahay marka dhammaan su'aalaha su'aashii aan laga jawaabin lama saxayo. u qor si muuqata kuna qor qalin leh qad buluug ah. qodobka afraad isku day inaad ka jawaabto dhammaan su'aalaha imtixaanka. qodobka shanaad u dambeeyay ku toosnoow dhammaan shuruucda imtixaanka iyo waqtiga loo xadiday. hubi ayaa lagu dhahay marka in imtixaanku uu ka kooban yahay 5 book. intaas oo tilmaamo markaad marto kadib ayaan imtixaanka guda gali doonaa. waxaad tirinaysaa in warqadaha aad haysto ay yihiin 5 warqadood. markaad 5 warqad aad hubiso kadib ayaad imtixaanka guda galaynaa marka ama aad guda galaysaa. qaybta koowaad kor mar doonaa. qaybta koowaad marka waxaa lagu dhahay su'aasha koowaad ururka soo koobaya qaybta koowaad waxaa marka goobigala jawaabta saxda ah waana 20 su'aal oo min 2 dhibic ah. saas waxaad ku haystaa marka 40 dhibcood. su'aasha koowaad aan guda gali doonaa. isla socod wanaagsan. ururka soo koobaya dhammaan ku tirsanayaasha ururada waxaa lagu magacaabaa, waxaa lagu siiyey ba urur guud, waxaa lagu siiyey ta urur duleed, waxaa lagu siiyey ja urur maran iyo waxaa lagu siiyey xa urur dhextaal. marka dhammaan ururka soo koobaya dhammaan ku tirsanayaasha ururada ayaa waxaa loo yaqaanaa ba oo ah urur guud ayaa loo yaqaanaa. waxaan ka dooranaynaa marka ba oo ah urur guud. su'aasha labaad waxaa lagu dhahay haddii urur guud ay yihiin buug, qalin, mastarad, sabuurad iyo jeesto ama jeeso, ururka B-na uu ka kooban yahay kaliya buug iyo mastarad iyo jeeso, hadaba urur duleedku B wuxuu noqonayaa marka urur duleed waxaa laga wadaa ururka guud markii urur gaar lagala baxo ururka soo har ayaa waxaa loo yaqaanaa urur duleed. hadaba urur duleedku waxay noqonayaa marka ba waxaa lagu siiyey qalin iyo mastarad, ta waxaa lagu siiyey qalin iyo jeeso, ja waxaa lagu siiyey qalin iyo buug, xana waxaa lagu siiyey qalin iyo sabuurad. marka ururka guud wuxuu ahaa buug, qalin, mastarad, sabuurad, jeeso. waxaa lagala baxay buug iyo mastarad jeeso, waxaa soo haraa marka qalin iyo sabuurad. marka urur duleedku waxay noqonayaan qalin iyo sabuurad oo ku xusan xarafka xa. waa qalin iyo sabuurad oo ku xusan xarafka xa. su'aasha saddexaad tiro walba oo aan ahayn eber muujiyaheeduna yahay eber waxa ay la eg tahay. tiro walba oo aan ahayn eber muujiyaheeduna yahay eber waxa ay la eg tahay. ba waxaa lagu siiyey eber, ta waxaa lagu siiyey 1, ja waxaa lagu siiyey -1 ama -1, xana waxaa lagu siiyey 2. marka tiro walba oo ku jibaaran ama muujiyaheedu uu yahay eber, tusaale 5 power 0 oo kale markay tahay waxaa soo baxaysa 1. tiro walba oo aan ahayn eber muujiyaheeduna uu yahay eber waxaa lagu magacaabaa waa 1 ayay la eg tahay. marka jawaabta saxda waa ta ayaan ka dooranaynaa oo ah 1. waxaan ka dooranaynaa ta oo ah 1. su'aasha saddexaad su'aasha afraad ayaan guda galaynaa. raadi ayaa lagu dhahay marka waxaad raadaysaa mugga 3 jibaaranaha ku sawiran dhanka midig. dhanka midig waxaa inoo yaalo 3 jibaarana. hadda waxaa laga rabaa mugga inaan soo saarno. marka mugga 3 jibaarana waxaa lagu heli jiray mugga 3 jibaarana waxaa lagu helaa dhinacyada oo 3 jeer la isku dhuftay. marka dhinacyada aan haysano waa 9 cm iyo 9 cm iyo 9 cm. 3 ayaan isku dhufanaynaa. 9 lagu dhuftay 9 lagu dhuftay 9 9 lagu dhufto waa 81 lagu dhuftay 9 waxay noqonaysaa 729. jawaabta saxda marka waa
ja oo ah 729 ayaan ka dooranaynaa. su-aasha shanaad qormo qoraalka gaaban ee 6 lagu jibaaray 5 tirada 5 waxaa loo yaqaanaa. marka tirada 5 ayaan laga rabaa waxa loo yaqaano oo kor saaran. tirada 5 ma waxaa loo yaqaanaa ba oo ah jibaar, ma waxaa loo yaqaanaa ta oo ah hooseeye, ma waxaa loo yaqaanaa ja oo ah sal, ma waxaa loo yaqaanaa xa oo ah muujiye. noqonaysaa xa oo ah muujiye, 6dana waa sal, 5tana waxaa loo yaqaanaa muujiye. markay wada socdaan ayaa waxaa loo yaqaanaa jibaar. su-aasha 6aad ayaan gula galaynaa. su-aasha 6aad marka waxayna leedahay ardayay, haddii mugga 3 jibaaranaha uu yahay 125 mitir 3 jibaaran, dhinaca 3 jibaaranaha waa tan waa cagsiga su-aasha daatay aan soo raadinaynay. marka 3 jibaaranaha guud ama mugga waxaa lagu siiyey 125. marka muggana waxaa lagu heli jiray 3 jibaaranaha ama 3 dhinac oo la isku dhuftay. marka 3 dhinac ayaa la isku dhuftay waxaa soo baxday 125. marka haddaba dhinacii muxuu noqonayaa? marka dhinaca 3 jibaaranaha wuxuu noqonayaa waa ba waxaa lagu siiyey 4 mitir, ta waxaa lagu siiyey 6 mitir, ja waxaa lagu siiyey 5 mitir, xa waxaa lagu siiyey 10 mitir. dhinaca 3 jibaaranaha wuxuu noqonayaa jawaabta saxda waa ja oo ah 5 mitir, sababtoo ah 5 oo lagu dhuftay 5 oo lagu dhuftay 5 waxay la mid tahay 125. 5 ku dhufo 5 5 ku sii dhufo waa 125. muggan waxaa lagu heli jiray dhinaca oo 3 jeer la isku dhuftay. marka inta waa 5, dhinacana waa 5, dhinacana 5. marka jawaab sax waxay noqonaysaa ja oo ah 5 mitir. su-aasha 7aad marka aan u qorno 850,000 qormo saynis ahaan waxa ay noqonaysaa ba 8.5 lagu dhuftay 10 ku jibaaran -5, ta waxaa lagu siiyey 8.5 lagu dhuftay 10 ku jibaaran 5, ja waxaa lagu siiyey eber 85 lagu dhuftay 10 ku jibaaran 6, xa waxaa lagu siiyey 85 lagu dhuftay 10 ku jibaaran 3. jawaabta saxda ah marka waxay noqonaysaa ta oo 8.5 lagu dhuftay 10 ku jibaaran 5, sababtoo ah haddii 850,000 loo qoro qormo saynis ahaan waxay noqonaysaa 8.5 lagu dhuftay 10 ku jibaaran 5 ayay noqonaysaa. su-aasha 8aad ayaan guda galaynaa. tirada saan oo kale markay qoran tahay 850,000 markay tahay oo lagu dhaho qormo saynis qor intaa tirada ka bilaabaysaa. pointiga halkaas oo galaa dhibicda waxay noqonaysaa 1 2 3 4 5. waxay noqonaysaa 1 2 3 4 5. marka baawarka wuxuu noqonayaa 5. su-aasha 8aad xilliga sana dugsiyeedka arday waliba waxa uu ku beeray deegaankiisa hal lagu dhuftay 10 ku jibaaran 4 geed. haddii 1.5 lagu dhuftay 10 ku jibaaran 5 arday ay dhigato dugsiga, haddaba tirada geed ay beereen ardaydaasi guud ahaan ardayda waxay noqonaysaa waxaa lagu siiyey ba oo 1.5 lagu dhuftay 10 ku jibaaran 9, waxaa lagu siiyey ta 1.5 lagu dhuftay 10 ku jibaaran 20, iyo ja 1.5 lagu dhuftay 10 ku jibaaran 4, iyo xa oo 1.5 lagu dhuftay 10 ku jibaaran 5. jawaabta saxda ah waxay noqonaysaa ba oo 1.5 lagu dhuftay 10 ku jibaaran 9, sababtoo ah waxaa isku dhufanaynaa 1.5 haddii hal lagu dhufto waxay noo soo baxayso oo keliya 1.5 ayaa soo baxayso. baawaradani hadday ku dhufshata waa isku darsamayaan waxay noqonaysaa marka times 10 power 9. jawaabta saxda marka waxay noqonaysaa ba. su-aasha 9aad ayaan guda galaynaa. waxaan ka shaqaynaynaa imtixaankii 8aadka ee sanad dugsiyeedka 2021-2022 ee maadada xisaabta ay galeen ardada. su-aasha 9aad waxayna leedahay ardayay, su-aasha 9aad fududaynta faraqa laba tibxaale qaaska ah ee ah x plus 5 iyo x minus 5 waxay noqonaysaa waxaa lagu siiyey marka ba x square minus 25, ta waxaa lagu siiyey x square plus 25, ja waxaa lagu siiyey x square plus 125, xa waxaa lagu siiyey xa oo loola jibaaray oo laga jaray 125. tan oo kale meel banaan aan tagayna maxaan leenahay x plus 5 iyo waxaan isku dhufanaynaa x minus 5, kadibna jawaabta soo baxda ayaan dooranaynaa. waayo x haddii x lagu dhufto waxay noqonaysaa x square, waxaa kaloo sameynaynaa x-ka waxaan ku dhufanaynaa minus 5 waxay noqonaysaa minus 5x, haddana 5 waxaan ku dhufanaynaa x waxay noqonaysaa plus 5x ayay noo noqonaysaa 5
minus plus 5 iyo minus 5 dul isku dhufto waxay noqonaysaa minus 25 waayay marka x square aan soo qaadanaynaa plus 5x iyo minus 5x way isla baxayaan waxay noo soo haraysa minus 25 marka jawaab saxda ah waxa x square minus 25 waxaan ka dooranaynaa x square minus 25 oo ku xusan xarafka ba su'aasha 10aad marka la isku daro 5x iyo waxaan haysanaa 5x loo hoos dhigay 21 iyo waxa la isku daray 4x oo loo hoos dhigay 21 waxaan sameynaynaa labada horgal ayaan isku daraynaa 5 lagu daray 4 waxay la mid tahay 9 labada x kana hal ayaan ka soo qaadanaynaa hooseeyaan maadaama isku mid yihiin hal xab ayaan ka soo qaadanaynaa jawaab saxda marka waa 9x oo loo hoos dhigay 21 waxaan ku dooranaynaa 9 xa su'aasha 11aad ayaan gudagalaynaa marka loo qoro jibaar ahaan a lagu dhuftay b lagu dhuftay a lagu dhuftay b lagu dhuftay a waxaan rabnaa in loo qoro jibaar ahaan waxaan sameynaynaa saddexda a hal xab baan ka soo qaadanaynaa mid walba hala u qorsan wuxuu noqonayaa 3 b e b na hal xab baan ka soo qaadanaynaa mid kasta waxaa u qorsan 1 waan isku darsamayna waxay noqonaysaa 2 waa a lagu jibaaray 3 iyo b oo lagu jibaaray 2 ayaan ka dooranaynaa marka jawaabta saxda waxay noqonaysaa waa xa xarafka xa oo ku xusan a oo lagu jibaaray 3 iyo ba oo lagu jibaaray 2 su'aasha 12aad marka la isku qaybiyo waxaa lagu siiyay 18 a 18 a b l haddii loo qaybiyo 6 a b maxay noqonaysaa haddaba jawaabtu maxaa isla baxaya marka b e b way isla baxayaan a iyo n way isla baxayaan 18 haddii 6 loo qaybiyo waxay noqonaysaa 3 iyo waxaa ii soo hartay xarafka la marka waa 3 l oo ah ama 3 la jawaabta saxda waxaan ka dooranaynaa ba oo ah 3 l ama 3 la su'aasha 13aad wareegga shaxanka laydiga ee soo socda waa wareegga shaxanka laydiga lagu siiyay oo 4 dhinac oo min 2 ah marka maxaan sameynaynaa waa isku dardaraynaa maxaa leenahay 2x square oo labada dhinac hal xab aan ka soo qaadanaynaa 2 iyo 2 afwan waa isku daraynaa waxaan leenahay 2 iyo 2 isku dar waa 4 x square hal xab aan ka soo qaadanaynaa aye waxaan leenahay 5 iyo 5 isku darsamayaan waxay noqonaysaa 10x 3 iyo 3 isku darsamayaan waxay noqonaysaa plus 6 waa 4x square plus 10x plus 6 ayaan ka dooranaynaa jawaabta saxda ah waa ba waa 4x square plus 10x plus 6 su'aasha 14aad raadi bedka lagu dhahay bedka saddex xagalka hoose adigoo adeegsanaya tibxaha aljabra waayahay bedka saddex xagalka hoose adigoo adeegsanaya tibxaha aljabra waxaan isticmaalaynaa marka bedka maxaa lagu heli jiray waxaa lagu helaa hal loo hoos dhigay 2 oo lagu dhuftay bayska ama salka oo lagu dhuftay height ama waxaan kaloo dhigi karnaa bedka waxaa lagu helaa hal loo hoos dhigay 2 ama half oo lagu dhuftay sal oo lagu sii dhiftay joog waayahay salka marka maxaan haysanaa waxaan haysanaa hal aan leenahay loo hoos dhigay 2 salka waxaan haysanaa 4 joogana waxaan haysanaa 8 joogana waxaan haysanaa 2 4 2 ku dhufanaynaa waa 8 hadii loo qaybiyo 2 waxay noo soo baxayso 4 jawaabta saxda marka waxaan ka dooranaynaa xa oo ah 4 centimeter square halbeega bedkana waa centimeter square 2 centimeter waaye waxay noqonayaan marka centimeter square isku darsamaya maadaama la isku dhufanayo su'aasha 15aad ayaan gudagalaynaa imtixaanka raadi wadarta bed duleedka ee sidjibkaha soo socda adigoo isticmaalaya xeerka 2 waxaa lagu siiyay xeer ah 2 lagu dhuftay dhirir oo lagu dhuftay balac oo lagu sii daray 2 oo lagu dhuftay dhirir oo lagu dhuftay joog oo lagu daray 2 oo lagu dhuftay balac oo lagu sii dhuftay joog haddaba jawaabta saxda ah maxay noqonaysaa waayahay maxaan sameynaynaa marka waxaan kala qaadanaynaa hadba mid aan haysano 2 soo qaadanaynaa marka hore qaacidada 2 isticmaal bracket fur bil fur dhirirka maxaan haysanaa dhirirka iyo jooga iyo balac dhirirka waxaan haysanaa 10 ayaa lagu dhuftay ayaan leenahay balac waxaan haysanaa 7 bishaan ku xireynaa ayay balaas leenahay qaacidada raacaynaa hadan 2 bilan furaynaa dhirirka waxaan haysanaa hadana 10
waxaan ku dhufanaynaa joog oo ah 5 balaas aan leenahay haddana 2 afar inta 2 ka maqan haddana balac waxaan haysanaa 7 ayaan leenahay waxaan ku dhufanaynaa joog oo ah 5 intaan ayaan isku dhufanaynaa 2 aan leenahay bracket for 10 hadii 7 lagu dhufto waxay noqonaysaa 70 balaas 2 line haddana wargala inoo soo qaad 10 ku dhufo 5 waa 50 balaas 2 haddana 7 ku dhufo 5 waxay noqonaysaa 35 2 ku dhufo marka 70 waxaa noo soo baxaysa 140 oo loo geeyay 2 ku dhufo 50 waa 100 oo loo geeyay 2 lagu dhufo 35 waa 70 intaan isku dardareynaa 140 u geey 10 waxay noqonaysaa 140 afar halkan waa 140 u geey 100 waxay noqonaysaa 240 waxaan ku dareynaa 70 waxay noqonaysaa 310 jawaabta saxda marka waxaan ku dooranaynaa ja oo 310 oo centimeter square su'aasha 16aad xisaab ayaa lagu dhahay marka bedduleedka ay leedahay dhulubada ku sawiran dhinaca midig u qaada bay waxa u qaadataa 3.14 bedduleedka dhulubada maxaa lagu heli jiray 1.14 waxaan leenahay marka bedduleedka dhulubada waxaa lagu helaa 2 by oo lagu dhuftay gacan oo lagu soo dhuftay gacanka oo lagu daray jooga waayahay labaan soo qaadanaynaa bayda waxa u qaada lagu dhahay 3.14 hadaan lagu siino waa u qaadanaysaa lagu soo dhuftay gacanka waa 10 u taagan waxaan ku sii dhufanaynaa gacanka oo asla 10kii oo lagu daray jooga oo ah 50 ayay marka intaan aan xisaabino waxa inoo soo baxayso 3768 oo ku xusan xarafka ta su'aasha 17aad dhinaca maqan ee saddex xagalka hoose adigoo adeegsanaya aragtida Pythagoras ayaan soo saareynaa aragtida Pythagoras waxaa lagu helaa waxay la mid tahay aragtida Pythagoras waa c square a square oo lagu daray b square c square marka c anaga maqan waxaan haysanaa a iyo b a waa dhinacaan waxaan haysanaa 3 oo la square gareeyay plus b na waxaan haysanaa 4 oo la square gareeyay c square waxay la mid tahay 3 laba jeer la isku dhufto waa 9 lagu daray 4 hadii laba jeer la isku dhufto waa 16 c square labadana isku dareynaa waxay noo noqonaysaa 25 c square kan loo baabiyo halkan waxa uu qeybanaa saareynaa xidid square ayaan halkan square aan gelinaynaa square laba isla baxayaan c marka waxay noo la mid tahay 25 hadii xididka laga saaro waxay noo soo baxayso oo kaliya 5 marka jawaab saxda waxaan ka dooranaynaa xarafka ta oo ku xusan 5 oo centimeter ah su'aasha 18aad raadi qiimaha xagasha x degree ee 5 geesoolaha qaabsanaya soo socda 5 geesoolaha lagu siiyay oo xagal kasta ay tahay 108 degree xagasha maqnay aadana waxay noqonaysaa isla 108 degree qaacido ayaa jirto oo ayadana lagu isticmaalo si loo soo baxdo waxaan sameynaynaa inta tiro ay yihiin waa n aan waxaan ka jaraynaa 2 waxaan ku dhufanaynaa 180 degree oo loo qeybshay inta tiro ay yihiin marka meeqa waa 5 waxaan ka jaraynaa 2 waa 3 waxaan ku dhufanaynaa 180 degree 3 ayaa waxaan ku dhufanaynaa 180 degree waxay noo soo baxayso 540 waxaan u qaybinaynaa 5 waxay noo soo baxayso 540 waxaan u qaybinaynaa 540 hadii loo qaybiyo 5 waxay noo soo baxayso 108 waxay noo soo baxayso 108 degree marka xagasha maqan waxay noo noqonaysaa 108 degree oo ku xusan xarafka x su'aasha 19aad imtixaanka fogaanta u dhaxeeya laba barood su'aasha 19aad ayaan gudagalaynaa raadiga lagu dhahay marka fogaanta u dhaxaysa laba barood 0.-3 iyo waxa lagu siiyay 0.3 waa fogaanta maxaa lagu heli jiray arday fogaanta waxaa lagu helaa xidid ama square root of x2 oo laga jiray x1 oo square gareysan waxaan ku dareynaa y2 oo laga jiray y1 oo la square gareeyay ayaan ku helaynaa x2 marka 0 waxa loo qaadanaa waa x1 -3 dan waa y1 0 ga dambe waxaan qaadanaynaa x2 3 ga waxaan qaadanaynaa y2
marka x2 waxaan haysanaa 0 laga jaray x1 waxaan haysanaa 0 intaan dil isku wargareeyo dhamaan waxa soo baxaya eber balaas aleena y2 waxaan haysanaa 3 minus y1 waxaan haysanaa minus 3 ayada bracket aan furayna maadaama minus ay gooni oo wadato way xididkan saarayna waxaan leenahay intaan waxa soo baxaysa 0 balaas aan leenahay 3 minus kan ku dhacay wuxuu noqonayaa plus 3 oo la isku wargareeyay xididka laba waxaan saarnaa xididka square root waxaan leenahay 0 plus aan saddex ku dar waa 6 laba jibaar square root aan leenahay eber hadii lagu daro 6 hadii laba jibaar waa 36 hadii xididka laga saaran waa 6 ama waxa kale oo dhigi karnaa xididka waxa la baxayo labada waxay noo soo hartay 6 marka fogaanta u dhaxaysa barahaasi labadaas barood wuxuu noqonayaa ta oo 6 halbeeg ayuu noqonayaa su'aasha 20aad wareega guud ee saddex xagalka hoose waa wareeg guud maadaama ay isku dardareynaa saddex lagu daray 2 waa 5 5 ku darna waa 10 saddex dhinac isku dareynaa jawaab saxda waa ja oo 10